مسؤولينta dawladda hoose ee degmada Burco iyo maamulka gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo kala duwan oo laga hirgelinayo gudaha magaalada Burco waxaana mashaariicdan hirgelinaysa dawladda hoose ee degmada Burco mashaariicdan horumarineed oo kala ah laba garoon kubadda kolayga oo laga hirgelinay barxadda hore ee dugsiga Sheekh Bashiir iyo waliba dugsiga 15 Meeya waxaa sidoo kale la dhagax dhigay casriyeyn iyo dayactir lagu sameeyay taalada Sheekh Bashiir ee magaalada Burco maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad oo dhagax dhigitaanka mashaariicdan horumarineed ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in dawladda hoose ee degmada Burco iyo maamulka gobolka Togdheer wada jir ay u soo jeesteen hirgelinta bilicda Burco halkan waxaan dhagax dhigaynaa annaga iyo gobolka iyo dhammaan mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada isku duuban garoon ciyaareed oo ah kubadda gacanta ina halkan ay noqoto centerkii Burco handball center ay noqoto oo dhalinyarada xiisaysa kubadda gaar ahaan kubadda gacanta ay halkan uu noqdo center anagu waliba magaalada dhinaceeda koonfureedna mid kale ka dhisi doona hadii Ilaahay ka dhigo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diriyoosna halkaas ka hadlay waxa uu sheegay isla markaasna uu dawladda hoose ee degmada Burco ku bogaadiyay mashaariicdan horumarineed ee maanta ka dhagax dhigeen gudaha magaalada Burco halkan waxa weeye Sheekh Bashiir hortiisa banaankii weeraha waxaan loo qoondeeyo dawladda hoose oo qoondeyso oo la garanaa in laga dhigo oo ahaa garoon kubadda kolayga ah si dhalinyarteenu u hesho chance iyo meel ay ku ciyaaraan oo ay energy jira iskaga saaraan iyada iyo koonfurta magaalada oo mid kala soo dhagax dhigi doona labadaas aan u sameeynaa waa koow dalku sida ma ahaanayo waxbaynu ka bedelaynaa waxbaynu u qabanaynaa Burco 10 kiiloomitir oo wada laamida madaxtooyada horumartoo kala aan ahayn tiimkaanu sameynayay kuyaanu sameynayay aan ahayn bahashii dhigaysa la keeni doonaa laga bilaabi doonaa maayirka xigeenka degmada Burco iyo xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco wayna halkaas ka hadlayay waxay yiraahdeen inaan taaganahay waa goobtii saddexaad ee saaka dhagax dhigeeda runtii gobol iyo degmaba aanu iska kaashanay waa goobaan ugu talagalay goobtani iskuulkan waa iskuulkii Sheekh Ismaan Nuur waxaanu ka sameeynaynaa dugsigii sare Sheekh Ismaan Nuur ama 50 kolba sida loo yaqaano waxaanu ka sameeynaynaa goob aan ugu talagalay kubadda gacanta in lagu ciyaaro Sheekh Bashiirna waa ogeydin inagii soo dhagax dhignay si sportiga gobolka uu noqdo mid chance badan ama waqti badan loogu helo in goobaha loo badiyaa garoonkana waa garoonkii aan ku ciyaari jiray halkan ay noqoto goob lagu ciyaaro basketball lagu ciyaaro aad iyo aad baan taa ugu faraxsanahay waxaan kale ugu faraxsanahay runtii yaan laba goobood oo basketball soo dhagax dhignay waxaan dareemi karaa in wabracagta inaga raxmaatee in basketball iyo handball iyo tennis ball iyo u yara wareegno dakhliga dawladda hoose soo gala maanta ugu fiican yahay meel wanaagsan oo maraya tiin maanta aanu waxa dhaygaanu qaadanay dhaylaha mooyaane aanu wana lagu leeyina ma jirto waa propaganda wax la shubaya dadkana waxaanu maanta u ballan qaadaynaa wax qabad garoonkan waa kii Sheekh Bashiir garoonkii 15 May nimankeenu tagaynaa dhagax dhigayna isku soo wada xooriyo mashaariicdan horumarineed ee maanta dawladda hoose ee degmada Burco ka dhagax dhigtay gudaha magaalada Burco ayaa waxay wax weyn ka tari doonaan horumarinta kubadda gacanta ee gobolka Togdheer iyadoo biyaamiin mas'uuliyiinta dawladda hoose in si dhaqso ah loo bilaabi doono dhismayaashooda waa Khalid Bakeele shabakada caalamiga ee I'tiraaf News Burco.